inta uu dhalinyarada u leeyahay dastuur markaan fiirino kulay dhalinyarada ay fadhiyaan ra'yigooda way dhiiban doonaan laakiin waxaan rabaa inaan guddiga iyo qof kasta aan xasuusiyo dastuurka oo waddan kasta uu leeyahay waxay tahay dadka uu saameynta tooska ku yeelan doono mustaqbalka waxaa waaye dhalinyarada maadaama ay yihiin dadka bulshada hadda ugu badan ee boqolkiiba 75 codsi awdanaa oo ah in dadka guddiga maadaama kulligooda ku kalsoonahay wasaaradda sidoo kale laakiin waxaan rabnaa in ay aad iyo aad nooga fiiriyaan mar walbo dastuurkan uu noqdo dastuurka tarjumaayo danaha mustaqbalka ee dhalinyarada ay yeelan doonaan. maanta waxaa tihiin dhalinyaradii yaryaraa oo loo baahnaa inaad ka qaadataan doorkiina dib u eegis dastuurka dhanka dhalinyarada. marka waxaan maanta idinkugu yeernay aan u fadhinaa aan u joognaa waxay tahay inaan taladiina dhageysano doodiinana aan dhageysano waxaad ku darsan lahaydeen oo talo ahna aad ku darsataan waana idin soo dhaweynaynaa waxaan maanta aan idinkugu fadhina waaye kadibna waa idinkugu soo laaban doonaa ayadoo saddexda hay-adood ee wadajir ah sidii ay uga qaataan dib u eegis dastuurka idinkugu soo bandhigaan waana salaaman tihiin. dastuurka wuxuu ilaaliyaa amniga iyo jiritaanka dowladnimada iyo kala dambeynta. dastuur haddaad maqashid ma aha wax dukumiinti inta la iska qoro mase laga doodo mase meel lagu tuuro, waa wax jiritaan kayaan ummad meel degan oo dad iyo dhul iyo nidaam dowladeed leh ee kala nidaaminayo waay kaa. marka waxaa loo baahan yahay in aad looga fikiro haddaad dhalinyaro tahay, haddaad aqoon-yahan tahay, haddaad jaamacad dhiganaysid inaad u fikirtid u furnaado waxaan waxa ugu horeeyo oo maanta aad bari dhihi kartid waxaa isiiyey dastuurka ayaa isiiyey xaqaas dastuurkii ayaa ii ogolaaday oo xujo uga dhigi kartid cid kasta oo xaqaada ku xadgudubto mase soo wajahda wax walba ha ahaatee.